mid ka mid ah askarta booliiska waddanka Norway ayaa loo soo taagay maxkamad in uu u gacan qaaday lamaantiisa ama haweeneyda ay nolol wadaagga yihiin, taa oo lagu soo eedeeyay in uu si xun oo arxan-dara ah u garaacay weliba uu u jirdilay. Arrintan ayaa 39 jirkan booliiska Norway ka tirsan waxaa loo soo taagay maxkamadda iyadoo lagu soo oogay dacwadaasi. Sida ku cad dacwadda lagu soo oogay ninkan, haweeneydan wada noolaanshaha kala dhaxayso ayuu si xun u jirdili jiray, waxa uuna dhowr jeer u gacan qaaday oo uu u garaacay si ka baxsan xadka caadiga ah. Waxaana lagu soo waramayaa in askarigan ka tirsan booliiska Norway uu dhowr jeer ugu hanjabay haweeneydan ay wada noolaanshaha kala dhaxayso in uu laf walba ay qaato uu jijibin doono oo uusan u arxami doonin. 39 jirkan booliiska Norway ka tirsan ayaa beeniyay dacwadan lagu soo oogay ee ah in uu si xun u garaaci jiray lamaantiisa. Waxaana lagu soo waramayaa dooda maxkamadeynta ninkan in ay socon doonto ilaa bisha May ee sanadkan aynu ku jirno ee 2026. Qareenka u doodaya ninkan booliiska ah ee 39 jirka ah oo lagu magacaabo Heidi Reiseberg ayaa iyadu ku waramayso in ay dooda maxkamaddu sii socon doonto, maxkamaddana ay ku laaban doonaan ninka ay difaacaysa ee booliiska ka tirsanna uu weli qirsaneen dembiga lagu soo oogay ee ah in uu si joogto ah u jirdili jiray lamaantiisa ay wada noolaanshaha ka dhaxayso. Taliyaha booliiska deegaanada koonfur bari dalka Norway, Ole Severud, ayaa ku waramayo in askarigan booliiska ah ee ka tirsan ciidankooda ay soo qabteen kadib markii ay soo gaartay warbixinta ku saabsan kiiskan dacwadeed ee lagu soo oogay, halkaasoo uu sheegay in ay xabsiga u taxaabeen. Kiiskan dacwadda ah ayaa maxkamadeyntiisa waxaa hadda loo wareejiyey maxkamadda magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway, halkaasoo loogu garqaadi doono ninkan booliiska ee 39 jirka ah ee lagu soo oogay xadgudubka jireed ee uu geysanaya lamaantiisa iyo hanjabaadda dilka ah ee uu ugu hanjabayay. Waxaana lagu soo waramayaa in maxkamadda magaalada Oslo ay dacwadda kiiskan askarigan booliiska lagu soo oogay ay ka furmi doonto 23 bisha afraad ee 2026, iyadoo lagu soo waramayo in ay socon doonto maxkamadeyntiisa ilaa 5 bisha May ee 2026. Arrintan ayaa dad badan waxa ay la yaab iyo amakaa ku noqotay in mid ka mid ah askarta booliiska dalka Norway lagu soo oogay jirdil joogto ah, hanjabaad iyo cagajuglayn aan kala joogsi lahayn oo uu kula kacayay lamaantiisa ay nolosha wadaagaan. Waxayna dad badan la sii yaabeen in askarigan ay soo qabteen saaxiibadii ay ka wada tirsan yihiin booliiska deegaanada koonfur bari ee dalka Norway. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.